war may waa wallahi ilaa shacbiga Boorama iyo ciidamada Somaliland labadii maalmood ee ugu dambeeyay rabshaduhu ka socdeen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal qaar kamid ah raggaasi oo gacanta lagu dhigay ciyaarta cadawga Somaliland ciyaaraya ma u egtahay ciyaartii shalay ee Laascaanood mid la mid ah isla markaana ay shacbiga Somaliland madaxa isku gelinayaan si ay uga hortagaan aqoonsiga Somaliland ay dhawaan filanayso isla markaana qaranka Somaliland ee nabadda ku naaloonaya kuna caanamaalay ay uga dhigaan goob fooda ah oo ay ka jiraan dagaalo sokeeye iyo dhiig daata sawirada qaldan ee lala damacsayay shacbiga Somaliland balse aanay fahmin dadkii walaalaha ahaa ee Boorama iyo Saylac oo madaxa la isku geliyay hal doorkii la filayay in ay ka hortagaan oo iyagu ku baaqay colaado sokeeye iyo dhiig daata Somaliland ay sidoo waa sidee Allah yow maxaa wax isku muuqda waa yaabkii Somaliland ay sidoo waa sidee haddii aanay qaar inaga mid aanay gacan siinaynin marnaba suuragal ma aha in cadow kale ina soo dhexgali karo wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee caawil helayay waxay tilmaamayaan in magaalada Boorama lagu qabtay niman shisheeye ah oo iyagu dawlado kale ay soo direen isla markaasina colaadani si hurinaya kuwaas oo iyagu si gaadma ah dadka u dilaya amaba u khaarajinaya waana niman ku hubaysan qoriga sniper-ka la yiraahdo afar kamid ah waxa la tilmaamay in ciidamada booliiska Somaliland ay gacanta ku soo dhigeen maanta halka qaar kalena ay ku dabaraad joogaan balse su'aasha isweydiinta leh ayaa ah sidee ayuu cadow kuugu soo gali karaa dalkaaga iyo magaaladaada hadiiba aanay jirin kuwa inaga mid ah oo iyagu gacan siiyay raggani iyagu ku hubaysan qoriga sniper-ka ee iyagu sheeda ka soo tooganayay ciidamada iyo shacabka reer Awdal ee iyagu banaanbaxyada ka dhigay labadii maalmood ugu dambeeyay magaaladaasi Boorama ayaa ujeedadoodu waxay ahayd in ay dadka si qarsoodi ah u dilaan isla markaana ay iska hor keenaan ciidamada Somaliland iyo shacbiga reer Awdal waxaana lagu guuleystay in afar kamid ah raggaasi gacanta lagu dhigo sida wararka iyo warbixinadu ay tilmaamayaan raggaasi oo la sheegay in ay hotel fooq ah dushiisa ka soo tooganayeen dadka shacabka ah isla markaana ay ka soo shiishayeen si marka dad badan ay halkaasi u laayaan ay dadku u gadoodaan una kacaan kana dhashaan kacdoono iyo banaanbaxyo ka sii waaweyn intani khasaaruhuna uga sii bato intaasi iyagoo ujeedada looga dan leeyahayna ay tahay in la iska hor keeno shacbiga Somaliland iyo xukuumadooda amaba ciidankooda wali waxa cakiran xaaladda ka taagan bandhiga buuqa xeer ciise iyadoon ilaa hadda wali xal loo haynin waxa jira dadyo kala duwan oo iyagu marar kala duwan warbaahinta ka soo muuqda isla markaana la hadlaya shacbiga Somaliland iyagoo intii labeenta u ahayd aad moodo